wacan oo wanaagsan kulantii wacan oo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Buurdhaab. Halka iga daawanaysaan waa Buurdhaab Media. Waxaan rabaa mawduucan maanta inaan kaga hadlo arrin ayaamahan dambe baraha bulshada soo farabadiyay oo lagu hadalhayo ah xadhigga siyaasiga Axmed Mohamed Said, wasiirkii hore beeraha Somaliland, kaasoo falcelin badan dadku ay ka dhiibteen oo siyaasiyiin reer Soomaaliya ka hadleen oo dad kaloo qurbajooga ka hadleen oo gobolka Awdal laga mudaharaaday oo lagaga hadlay wuxuu u xulan yahay arrimaha badda Somaliland iyo Itoobiya kala saxdan. Waxaan rabaa in halkan idinka faahfaahiyo sababta Axmed Mohamed Said loo soo xidhay iyo inaan u xidhnayn arrimaha badda Itoobiya iyo Soomaaliya. Axmed Mohamed Said waxaa xidhay muwaadin reer Somaliland oo ku lahaa mag ama dhaawac ka soo gaadhay adinka iyo burbur hantiyeed oo gaadhigiisiya. Kadib Axmed Mohamed Said wiil uu adeer u yahay ayaa jiirsiiyey ninkan gaadhi uu watay. Ninkaasna dhaawac baa ka soo gaadhay, ninkaasoo lagu magacaabo Axmed. Gaadhigiisana wuu burburay. Axmed Mohamed Said kabacdi isagaa damaanad qaaday inuu bixinayo dhaawaca muwaadinka, gaadhigiisana sameynayo, laakiinse muu sameynin oo may suurto gelin. Waanu bixin waayey, waxaanu dulmiyey xuquuqda muwaadinka. Kabacdi muwaadinkaas ayaa maxkamadda sare ee gobolka Maroodijeex uga soo jaray saman waarana lagu qabanayo. Sifadaasaanu ku xidhan yahay. Habeenada dhaweeto Axmed Mohamed Said wuxuu ka hadlayay warbaahinta oo ka hor intaan la xidhin oo ku hadlayay gobolka Awdal baan mas-uul ka ahay. Muxuu mas-uul ka noqon karaa ninka leh gobolka Awdal populationka ku nool baan mas-uul ka ahay? Wuxuu mas-uul ka noqon waaya wiilkii yaraa wadeerka u ahaa ee uu shilka galay inuu bixiyo dhibaabadii uu ugu geystay muwaadinkaas reer Somaliland. Sidoo kale waxaan arkayay madax reer Soomaaliya oo ugu horeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo cambaare ku eedeynaya xukuumadda Somaliland inay ka dambeyso xadhigga Axmed Mohamed Said oo ay u xidhay arrimaha badda ee Saylac ee Itoobiya iyo Somaliland kala saxdeen. Taasna waxaan leeyahay waa waxba kama jiraan, taasi wax ka jiraana ma jiraan. Axmed Mohamed Said xukuumaddu uma soo xidhan arrimaha badda. Isaga ku fashilmay inuu mas-uuliyaddii uu qaaday ka soo baxo. Waxaanu rabay in uu dulmiyo xuquuqda muwaadin reer Somaliland. Dadku waxay ka hadlayaan Axmed Mohamed Said xuquuqdiisa. Muwaadinkan uu dhibaabada u geystay dhiiggiisa daatay miyaanu xuquuq lahayn isagu? Su-aasha la isweydiinayo. Markaa wax ka jira ma jiraane dadka boorobagandhaha iyo waxaa wada ha joojiyaan. Ilaa Awdal bacaankana Awdal muxuu nin mas-uulahoo uu hayo siyaasi ahoo shilkii in uu muwaadinkan uu xuquuqdiisa siyaabaheed wiilku adeerka u yahayna xabsiga ka sii daayo. Intiiba uu ku fashilma. Marka siyaasiyiinta xisbiga wadani waxaan leeyahay qoladiinan xukuumadda cambaareynaysan dee idinkaaba ka xuquuqdii muwaadiniinta ku tumanaya oo dhibaabeynaya oo xuquuqdii muwaadiniinta reer Somaliland baalmarsan oo sharciga baalmarsan sameynaya. Maxaa xukuumadda uga eedeynaysaan? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.